muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sida MetaMask wallet loo samaysto. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore nala joogtayna muuqaalkan like saar. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. marka ugu horeysa aad doonayso inaad MetaMask la soo degto, haddii aad Android isticmaalayso Play Store-ka kala soo deg, haddii aad iPhone isticmaalaysana App Store-ka kala soo deg. marka hadda waan la soo degaysaa arkaysaan, kadibna waxaan leeyahay open. markaan open iraahdo waa isoo kacaya. markuu isoo kaco waan buuxin doonaa, waxaana ku tusayaa qaabka loo buuxiyo. marka hadda waxaan leedahay marka uu san kugu soo kaco waxaad oranaysaa get start. markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay ma mid waxaad doonaysaa farsal ah mise mid caadi ayaa doonaysaa inaad iska samaysato. farsalka labadaba waa uu ku shaqeeyaa, marka labadaba uu ku diri doonaa inaad samaysto ayaad leedahay. marka halkan create new ayaad taabanaysaa, kadibna halkan ayaad tig saaraysaa, kadibna tig markaad saarto halkan baad leedahay agree. kadib agree markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay foonkan akhriso, kadib foonkan saa isku dhaafi. waa policy-gii iyo siyaasadii application kadib halkan saaro, sidaas ayaad u riixaysaa, kadibna accept ayaad leedahay. kadib accept markaad tiraahdo halkan waxaa u samaysanaysaa password cusub. anigu hadda password cusub ayaan u samaysan doonaa. qaybtan markaad buuxiso, qaybtana passwordkii kaad gelisay unbaad mar labaad gelinaysaa. halkan haddana wuxuu ku leeyahay security-ga si adkayso, kadibna saddexda qaybood ayaa la marayaa. marka qaybta koowaad baan hadda samayn doonaa. sida arkaysaan wax buuxiyay passwordkii laba mid halka tig ayuu ku soo saaraya passwordkaagu haddii uu yahay secure mid adag aad ka dhigatay. kadibna halkan ayaa tig saaraysaa, kadib tig marka saarto halkan waxaad leedahay create password. kadib passwordkii waan ka gudbay, xoogaa ayuu yar wareegayaa, kadibna wuxuu ku soo saarayaa step 1 waan ka gudbay, 2 ayaan imika maraya. saad la socotaan hadda star ayaan leeyahay, kadibna star marka iraahdo, kadibna star markan si iraahdo mar kale ayaan star si leeyahay. step 3 ayuu inoo gudbin doonaa oo aad arkaysaan finger ku xidho ayuu weli fingerkii ayaan ku xidhay. halkan waxaa kasoo bixi doona magacyo farsal ah. farsalkaas waan qarsanaya marka maadaama aan anigu leeyahay. adiguna screenshot ka qaado farsalka, kadibna farsalka adigoo arkaya wixii uu ku weydiiyo step 3-ga uu ku weydiiyo, kadib ayaad farsalkii ku buuxinaysaa adigoo tirooyinkan qoranaya. marka tirooyinkanna waa security. marka aad hadhow soo galaysin uu ku weydiinaya, marka screenshot ka qaado halkan ayay kasoo baxayaan. marka hadda ma doonayo inaan furo, waayo kan aniga ayaa iskale. marka continue ayaad leedahay. markaad saa ugu dhufato halkii yarayda ee qarsooneyd ayaad taabanaysaa, farta ayaad ku gujinaysaa. marka hadda magacyadii aan screenshotka ka qaatay ama mobile kalaad ku sawiranaysaa mobile markaad ku samaynayso si ay kuugu fududaato. marka hadda lambar 1 ayuu iga rabaa. lambar 1 waxaan leeyahay waxa ugu horeeyay company ayaa ugu horeeyay, company waxa ku xigay lambar 2 ayaa ku xigay. marka intan ayaan buuxinaya maadaama uu passwordkayga yahay, saas oo kale ayaad u buuxinaysaa. lambar 2 waxa ku xigay ee aad haysato sawirkii hore ee aad ka qaadatay ayaad gelinaysaa. marka hadda aniga kan iskale. marka lambar marka aan dhamaystiro complete halkaas ayaan taabanaya, kadib sidaas ayaad u qoraysaa. hadda aan ku tusay sawirkii hore iyo sawir halkan buuxbuuxi ku leeyahay baad u buuxinaysaa. kadibna waxaan ku tusi doonaa qaabka lacag loogu soo shubto. saarkiisa waan buuxbuuxiyay. marka halkan aan taabanaya, halkan waan ka qarin doonaa sidaan u buuxbuuxiyay maadaama aan anigu iska leeyahay. complete ayaan leeyahay. complete marka iraado saddexdiiba arkaysaan wuu ii hambalyeynaya. saarkiisaan hambalyo ayuu leeyahay, waad ku guuleysatay inaad samaysato MetaMask. waaladkan waa waalad uma baahna baasaboor iyo ID card iyo waxa kaagama baahna kaliya. marka waan ku tusi doonaa gudihiisana sida lacagta loogu soo shubayo. done ayaad leedahay, kadib notankis ayaad iska leedahay, kadibna sidaas ayuu kugu soo baxayaa. halkan notankis ayaad iska leedahay. kadib waxaan ku tusi doonaa inta qaybood uu kala baxo, inta blockchain loo sii kala baxayo iyo blockchainada aad ku isticmaali karto marka aad isticmaalayso mema coinska aad kaga faa'iideysanayso. halkan ayaad ku dhufanaysaa. markaas halkan waxaa kaaga soo bixi doona dhammaan blockchainada uu ku dul dhisan yahay. hadhowna mema coinka marka la soo shaaciyo, haddii la soo shaaciyo mema coin BNB ku dhisan, kan ayaad lacag ku shubanaysaa. haddii la soo shaaciyo mema coin ku dhisan base, kan ayaad ku dhufanaysaa. haddii lagu raahdo mema coinkaasi blockchain ayuu ku dhisan yahay, kan ayaad ku dhufanaysaa. marka hadda BNB ayaan ku dhufanayaa. kadib saas marka ugu dhufto BNB gudaha ayay ii tegaysaa. oo arkaysaan gudaha ayay ii tagtay. saa arkaysaan oo marka hore waxay igu jirtay tan kale ayaa igu jirtay Ethereum ayaa ku jirtay.
Ethereum-na tan haddii uu meme coin-ku Ethereum ku dhisan yahay oo lagu soo saaray oo la shaaciyay markasta marka kuwan waa inay lacag ugu jirto marka si meme coin-ka markasta loo soo shaaciyay adigu faa'iideysto inta aanu cirkaasi gelin ama kor u kicin marka saadaba ina BNB lacag soo shubato halkan ayaad ku dhufanaysaa BNB ayaad san ugu dhufanaysaa kadibna waxaad leedahay receive markaad tiraahdo address-kan ayaad qaadanaysaa halkan ayaad ka koobiyeysaa kadib koobi markaad tiraahdo address-kaad qaadato kadib waxaad iska tegaysaa Binance-taadii lacagta BNB ayaad iibsanaysaa kadibna address-kan ayaad ku soo shubanaysaa intaasna way fududahay haddii aana soo daawan labadii cashar ee ka horeeyay ayaan ku sheegay qaabka lacag loogu shubto iyo waaladadan oo kale sida lacag loogu shubto adigoo Phantom isticmaalaysa lacag loogu shubto sidii aad Phantom ugu soo shubatay baad kana ugu shubanaysaa marka intaasna way iska fududahay muuqaalka intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan like saar si asxaabana u gaadho muuqaalkana waxa kale oo ku jira bakhtiyaa nasiibka hore aan idigu sheegay kaasoo aad muuqaalka bartankiisa ku arkaysiisa daawanaysay marka muuqaalkaasi aad dhamaysato commentiga ku soo qor lambarkaas haddii aad guuleysato hadhow Telegramka jil xirfad ee xagga hoose yaala ayaan ka shaacin doonaa natiijada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.